Militariga Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka ammaanka Galmudug ayaa maanta oo Talaado ah qaaday guluf dagaal oo ka dhan ah ciidan taabacsan Sheekh Maxamed Cali Xasan oo dhawaan qabsaday degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Ciidankan ka ruqaansaday magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay saqdiga dhexe gudaha u galay deegaanka Ceeldheere oo u dhaxeeya degmooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ee bartamaha Soomaaliya sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka. Saraakiisha hogaaminaysa ciidanka ayaa u sheegay warfidiyeenada in ujeedkooda uu yahay in ay dib ula wareegaan magaalada ganacsiga caanka ku ah ee Guriceel kadib 12 maalmood ay maamulayeen ciidanka Ahlusunna. Dhanka Guriceel, ciidanka Ahlusunna ayaa ka wada dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan in ay difaacdaan maamulka magaalada, waxaana iskaga barakacay shacabka oo cabsi xoogan ka qaba in lagu dul dagaalamo. Magaalada dadku horey ayaa uga barakaceen, haddana intii hartay ayaa naftooda kala baxsanaya, ayuu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah ganacsatada magaalada oo diiday in aan xigano magaciisa. Gudoomiyaha deegaanka Ceeldheere Cabdulaahi Cabdiraxmaan Xudur oo la hadlay warbaahinta Galgaduud ayaa sheegay in xaaladda deegaanka ay degan tahay, qorshahoodu yahay in ay la dagaalamaan Al-Shabaab. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo guuldareysteen dadaalo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee Galmudug, maadaama laba dhinac ay ku adkaysteen shuruudo ay dalbadeen in marka hore la fuliyo.